wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Sool ayaan ku soo koobaynaa warbixintan. xilli uu hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu qaaday tilaabo weyn oo ku aadan hogaanka ciidanka Somaliland ee gobolka Sool iyadoo uu bedelay taliyayaal ciidan isagoo waqtigan adeegsanaya saraakiil cusub oo haysta tababar sare kuwaas oo laga keenay madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa. madaxweyne Biixi oo ah korneyl ciidan oo aaminsan in gobolka Sool uu caalamku u aqoonsan yahay Somaliland adduunkuna uu xad ahaan raaciyay gobolka Sool Somaliland ayaan aqbalayn wax walba oo gobolka Sool ka saaraya gacanta Somaliland waana midda keentay inuu madaxweyne Biixi gobolka Sool geeyo ciidankii ugu badnaa ee wata gaadiid dagaal oo culus. sida la socotaan dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay waxaa fududeyd in magaalada Laascaanood uu tagi karo qof walba oo diidan Somaliland taasi oo bulshada Soomaaliyeed u sawirtay in magaalada Laascaanood laga saaray gacanta Somaliland laakiin si hadda xaalku sidaas ma aha oo Somaliland oo markii hore xal raadinaysay ayaa ogolayd inay dadku tagi karaan Laascaanood laakiin si hadda waa ay diiday waxayna xirtay dhammaan wada walba oo laga gali karo Laascaanood waxaana ay Somaliland kordhisay tirada iyo hubka ciidan ee yaala deegaanka Tukaraq oo ah saldhigga ugu weyn ee Somaliland ka ilaashato gobolka Sool ahna halka laga soo galo Laascaanood oo hadda xudun u ah khilaafka taagan. dadka taageersan Muuse Biixi ayaa ku doodaya in madaxweynaha Somaliland laga rabay inuu mar hore adkeeyo wadooyinka laga galo Laascaanood oo aysan Somaliland ogolaan in ciidan hubaysan oo aan ka amar qaadan Somaliland aysan tagin gudaha Laascaanood taas bedelkeedana ay Somaliland sugto ammaanka waxgaradka Sool ee ku shiraya Laascaanood. laakiinse sida muuqata Biixi oo ka rajo qabay inaysan xaaladda gobolka Sool heerkan gaari doonin oo bilowgii Laascaanood u diray qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo xubnaha ka soo jeeda gobolka Sool ayaa markii ay Hargeysa ku laabteen asbuucan ayagoo aan hayn xalka Laascaanood oo faramaran ayay xukuumadda Somaliland qaadatay go'aankeedii ugu dambeeyay oo ah in magaalada Laascaanood lagu soo celiyo gacanta maamulka iyadoo la adkeeyay dhammaan wadooyinka laga soo galo magaalada Laascaanood taasi oo ka dhigan inay Laascaanood tahay magaalo go'doonsan oo xilligan aysan tagi karin cid aysan Somaliland sii dayn. sidoo kale hadal jeedintii madaxweynaha Somaliland ee shalay ayuu diiradda ku saaray xiisadda Laascaanood isagoo sheegay inaysan ciidanka Somaliland ka bixi doonin gobolka Sool ayna sugayaan xuduudaha Somaliland. madaxweyne Biixi wuxuu ugu baaqay sheegayna inay sugayaan wax wanaagsan inay ka soo baxaan shirka odayaasha dhaqanka uga socda Laascaanood wuxuuna xasuusiyay inaysan qaadin waxaan anfacayn Somaliland oo horseedi kara khalkhal amni. marka la eego hadalka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu ahaa mid xambaarsan in xalka aan laga tagin oo wax walba miiska wada hadalka lagu dhameeyo. sidoo kale siyaasiyiinta Somaliland ku metela gobolka Sool ayaa ah kuwa aan wax talo iyo aragtiya ku lahayn shirka Laascaanood ka socda taasi oo muujinaysa inuusan shaqayn doonin wax walba oo ka soo baxa shirbeeleedka ka socda Laascaanood oo aysan qayb ka ahayn siyaasiyiintii ku metelayay Somaliland. waxaana isha si weyn loogu hayn doonaa shirka uga socda magaalada Laascaanood waxgaradka gobolka Sool iyo waxa ka soo bixi doona taas oo ay qolo walba dhinaceeda sugayso. halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa wax walba oo ka soo kordha shirarka Laascaanood iyo xiisadaha halkaasi ka taagan iyo go'aamada Somaliland ee gobolka Sool.